لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده waxaa guud ahaanba saaka caalamul islaam looga dareeray tukashada salaada ciidul adxada madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna kusimaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seelici ayaa masaajamaca weyn ee magaalada Hargeysa kula tukaday salaada ciidul adxada kumanaan kamid ah shacabka Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Hargeysa waxaana ku welinaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland xubno ka tirsan golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qaar kamid ah maay ku-xigeenka caasimada Hargeysa siyaasiyiin waxgarad iyo waliba mas'uuliyiin kala duwan oo kamid ah madaxda golayaasha qaranka markii laga soo baxay labada ragcadood ee salaada ciidul adxada ayaa waxa halkaasi khudbad ka jeediyay imaamka masaajidka waxaana uu ka warramay maalintan iyo qiimaha ay leedahay ee xajka asalka u ah ee qofkii dhaafaan xajka ansixin waxa uu yiri rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dadii haw maqla oo dhageysta waxa laga yaabaa maanta oo kale goobtan oo kale inaynan dib ugu kulmin baa laga yaabaa uu rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isaaya ka qayb qaatay sulh bayna naas oo ku saabsanayd waqtiyada kamid reer Quba ay isjeereen ayuu deeyna Mariya aan dhexdooda wanaag kaga shaqeynay waxay leeyihiin culimadu ma jirto tallaabo ka khayr badan tallaabo loo qaado laba walaal oo wax dhex marin heshiisiintood ilaahay waxaynu weydiisanaynaa ciideeda inuu nabadgeliyo caafimaad lagu gaarsiiyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seelici ahna kusimaa madaxweynaha Soomaaliland oo la hadlay shacabka ayaa waxa uu ku dheeraaday nimcooyinka tirada badan ee uu eebayna siiyay iyo sida ay muhiimka u tahay inaynu uga faa'iideysano waxa uu shacabka Soomaaliland uu soo jeediyay inay meel uga soo wada jeedaan horumarinta qaranka iyo ilaalinta nabadgelyada isagoo ka hadlaya arintaasi ayaa waxa uu yiri dhammaan shucuubta islaamka gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland shacab iyo dawladba meel ay joogaan dibadda iyo gudaba meel ay joogaan waxaan leeyahay ciidda sharafta badan ee Ilaahay nagu inoo hibeeyay ciidda ku ciida bashbash iyo barwaaqo Ilaahayna waxa idinka rajaynayaa in sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo inoo gaarsiiyo waxa weeyaan inta Ilaahay naabuuray in faray iyo nabigiisa kaleey salaam in ka badan qof bilaadan in oran kari maayo waxa maanta in oran kaliya nimcada aynu haysano ee ugu horeysa amniga iyo iimaanka oo Ilaahay dad muslimiin ay naga dhigay isla markaana sanadkani sanad inooga duwan sanadaha kale xagga maanta abaarihii nagu soo noqday oo sanad barwaaqo ah oo inta badan maanta aan ku ciidayaan rays in Ilaahay horta uga mahadnaqo nimcada Ilaahay siiyay yaan ummadda reer Soomaaliland ku dardaaraya waxa kale ku dardaaraya ummadda reer Soomaaliland inay maartay nabadgelyada iyo nimcada haystaan ay ilaashadaan gacmaha is qabsadaan qaranku uu ku dhismaa in laga tago qabyaalad haddaan qabyaalad laga tagin qaran noqon mayno qaran dhismi maayo dimuqraadiyadana qaadanay markaad eegto sida u dhaqmayaan ta Ilaahayna faray rasuulkiisa umba ka soo dhigteen sida uu sheekhu sheegayay waxa xuquuqda bini'aadamka qof kasta oo Ilaahay abuuray oo qaran ku noolay inuu xaqiisa helo xorriyadiisa helo maalkiisa lagu xadgudbin naftiisa lagu xadgudbin ayuu ina fartay diinteeduba inta ba dimuqraadiyaduna faraysa iyaduna marka وين قبيلة كجورنو أو قرنو جورنو سديرة تصنعات أيه نسكسوات الشرني وين رفعنا أو واحد نعدد واحد إيه ناو نقعد كأجه حسيو قرن سجاي سديرة تصنعات واللي مرسو قاري ولا علينا وما هو سيجنا لكن سهل كان جون سديرة تصنعات هدينا قبيلة عجاه النهينين هدينا الحسن يلوى دبسكو جيدينين ما أنت هل كان جونو تومن جيرلاب كده بنجوجلين وعلينا هدينا هاي مدح يوم الشباب
aan gacmaha isku qabsanno inaan qarankani aynu halkuu doonaya gaadhsiino ilaahayna aan la kaashano inaan himiladeenna ah inaan qaran madax bannaan noqonno waxay ku imanaysaa ilaahay waxa nabiga ciise sallallahu alayhi calaa niyatikum tarsaquun wuxuu ilaahay ummaddiisa ku arsaaqa qof walba niyadeenna wanaagsan hadday niyadeenna wada wanaagsanaato waxayna wax maarmayaan haddaysan niyadeenni kala jeedo maalin walba in baad inta wanaagga faraha badan leh inta wanaagsan baa badan Soomaaliland laakiin haddana dee inta xunee badan cagaad dadka jiidaysa ama dalka maartay danaha gaarka ku xoog badan yihiin waxa leeyahay war dan gaari ma jirto marka danta guud hagaagto nin walba reer Soomaaliland danta guud hagaagto wax ugu jiraan hadday danta guud hagaagin dan gaari ku hagaag mayso sida la sheegay waa doonta baan wada saaranahay doonta inaan wada badbaadsano oo waqti adag baa lagu jiraa caalamku wuxuu ku jiraa waqti adag waqtigan waxa laga gudbayaa iskaashiga gacmaha la isqabsado Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa.